barwaaqadaas idin muuqata hadda nolol badan kuma haystaan dadka degan beero webi iyo xoolo ayaana lagu dhaqan jiray al-shabaab ayaa qaar badan oo dadka ka mid ah ka barkiciyay halka kuwa kalena ay badeen nolol liidata ciidamada xoogga dalka ayaa tagay deegaanka lagu magacaabo Mordilne oo hoostaga Sabiid iyo Caanoole waxay geeyeen daawooyin waxay u qeybiyeen dadka shacabka ah oo ay ka muuqatay xaalad caafimaad darro sidoo kale dhaqaatiir ka tirsan ciidamada xoogga dalka ayaa xog wareysi caafimaad la yeeshay dadka jilicsan kadibna qaar baaritaano gaar ah u sameeyay meeshaan aan u imaanay magaalada Mordilne waxaan ugu imaanay inaan ciidamada anaga dalka xoogga inaan siino daawo ayagoo loo diiday intaasoo 7 sano ay haysteen magaalada shabaab ciyaalka ee dandareesan yihiin oo u baahan yihiin daawo qaarkood ee barareen qaarkood tabcaan ay yihiin oo u baahan yihiin caafimaad guud inaan daawo siino inaan wax u qabanno walaalaheen anagoo ka xureynay nimankii joogay ee shabaabka ka xureynay anagoo wadankii u xureynay maantana inaan si caafimaad iyo daawo aan ku siino anagoo joogno magaalada Sabiid sidoo kale Cabdullaahi Xasan Muuse ayaa dhankiisa sheegay in al-shabaab dadkii ay dhibaateeyeen iyagu ayna u gurmadeen kuna dadaali doonaan sidii noloshooda caadiga ahayd loogu soo celin lahaa dadka ka tabaalisan tuulada Sabiid iyo Caanoole gaar ahaan tuulada Mordilne waxaana keenay daawooyin caafimaad ah dadka shacabka dhibaataysan tuulada muddo 8 sano oo yeesan wax caafimaad ah wax waxbarasho amaanta u keenay daawooyin caafimaad ah iyo xanuuno kala duwan sheeganayo xanuunada ku qabilnay insha Allah waxa u rajayn doonaa caafimaad anagoo ka saarnay dadkii tuulada ku miisanay gumeystayaashii marka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed guul weyn ay gaareen dikraan tuulooyinkii laga saaray al-shabaab dhammaantood waxa ka socda dadaalo lagu gurmanayo shacabka tabaalaysan maadaama lagu guda jiro bisha barkeysan ee Ramadaan